waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa Aashawariya Ray oo da'deeda sheegtay inaysan marnaba ka kaftamin kadib markii ay ka xanaaqday hadal dhawaan ka soo yeeray atriishada lagu magacaabo Sonam Kapoor. maxaase ka dambeeyay iyo jawaabtii Aashawariya ay bixisay ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa daawade. haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawina subscribe tira channelkan kadibna furatid calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wax walba aan soo gelino channelkan. sida la wada ogsoon yahay dumarka ku nool caalamka aynu joogno da'dooda si sax ah kagama jawaabaan marka la weydiiyo, mana jeclo in la weydiiyo da'dooda, waxayna jecel yihiin inay isyareeyaan waqti walba, waana wax dabci ahaan ay ka siman yihiin gabar walba oo ku nool dunidan. waxayna jeceshahay inay qurux badnaato da'deeduna mar walba ay sii yaraato. Aashawariya Ray waa mid ka mid ah dumarka ugu quruxda badan adduunka taariikh ahaanna soo maray. da ahaan waxay jirtaa xilligan 45 sano, waxayna ku sii dhowdahay 46 sano. dhanka kale Sonam Kapoor oo ah atriisho uu dhalay halyeygii Bollywoodka Anil Kapoor, iyaduna waa 34 sano jir xilligan. farqiga da'da ee u dhaxeeya labadan atriisho xilligan xaasaska ah waa 11 sano ilaa 12 sano. haddaba Sonam Kapoor ayaa ka dhawaajisay in Aashawariya waalidkeed oo kale ay tahay, weliba eedo ay ugu yeertay saxaafadda hortooda. saxaafadda ayaana Sonam Kapoor hadda ka hor ku soo hadal qaaday Aashawariya Ray iyagoo faashiyonka labadan atriisho isbarbar dhigaya. Sonam ayaana weerar ku qaaday Aasho, waxayna tiri ilaan waa atriisho aan hadalka la gambane. waa qalad in aad isbarbar dhigtaan gabar iyo waalidkeed. Aashawariya isku jiil ma nihin oo waa qof aad iiga weyn, sidoo kalena waqti la soo qaadatay aabbahay lana soo shaqaysay, marka waa eedaday qoftaas yaanan layla barbar dhigin mar kale. Aashawariya ayaa hadalkaas markay maqashay aad uga xumaaday. Aashawariya Ray hadalkaas markii ay maqashay aad ayay uga carootay, salaantana way la agmartaa Sonam Kapoor. xitaa mar saxaafaddu ay weydiiyeen waxay tiri waa gabar yar oo iska hadashay oo aan u xisaabinayn hadalkeeda. Aashawariya kama kaftanto da'deeda, mana jeclo in duqnimo lagu tilmaamo, welina way la dagaalamaysaa oo waaba mid ka mid ah atriishooyinka ugu soo jiidashada badan waqtigan. waad ku maasan tahay la socodka iyo daawashada aad daawanaysa channelkeena Samiir.